بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، waxaa ilaahay subxaana wa tacaala mahadii ah caawa oo bisha dilqicda ay tahay 12 inuu marti nooga yahay masjid abubakar asidiiq alislaami macaali doctor faysal maxamed cali abu xudayfa oo ah mudiirka jaamacat alnajaax fii burco oo ka mid ah culimadii ka soo takharujtay aljaamica alislaamiya bilmadiina munawara kuliyat alxadiid alshariif wadiraasaat alislaamiya. aad iyo aad baan ugu faraxsannahay imaadkiisa, waana soo dhowaynaynaa. ahlu cilmiga isaga la midka ah inay yimaadaan oo cilmigooda ummadda ay ugu faa'iideeyaan runtii waa madlab aad u weyn, khaasatan dalabata cilmiga aad iyo aad bay ugu baahan yihiin. waadurarta oo sheekh cumar faaruuq calayhi raxmatullahi uu dhihi jiray muxaadaraadka waxaa laga helaa sanata cilmi aad sanad ku heli lahayd ayaa hal maalin aad ku helaysa ama labeen. marka insha allahu tacaala cinwaankana wuxuu noqon doonaa ta'amulaatun fi xadiiin jaamic. marka sheekha doctoorka waan soo dhowaynaynaa, falyatafadal mashkuuran ma'juura. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده وخليله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الله مهد سبحانه وتعالى إنه كل ميي مساجد كان أبو بكر الصديق نيضا تاريخ السيلة الشيعية عاوتها إلا بية وكيد القعدة عام 1437 للهجرة. run ahaantii waqtigoo iska kooban waxaan doonayaa insha allahu tacaala in aynu wada diraasayno xadiid ka mid a axaadiista nabiga sala allahu calayhi wacala aalihi wasalam. khayr oo dhanina wuxuu ku jiraa kitaabka rabbi iyo axaadiista nabiga sala allahu calayhi wacala aalihi wasalam. qofka muslimkaahina hanuun ka suuli maayo inta uu labadooda ictisaamayo oo uu qabsanayo kitaabka iyo sunnada, inta uu ku dhagan yahay iyo fahamkii saxiixa ahaa calaa ahlulcilmigu ay ku fasireen ama ay ku sharaxeen nusuusta sharciga ah. inta cumdadiisu ay taa tahay biidni illaahi tacaala wuxuu ammaan ka haystaa baadi iyo lunsanaan iyo inuu siraatulmustaqiimka ka dhaco ammaan buu ka yahay. waxaynu ognahay rasuulka sala allahu calayhi wacala aalihi wasalam inuu lahaa khasaa'is fara badan iyo waxyaaba uu la gaar ahaa oo ummaddu aanay la wadaagin. waxaa ka mid ahaa khasaa'ista أنه اختصر له الكلام اختصارا وجمع له الكلام. إن خصائصتي سيكمل النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الكلام أروريي أو كلمة لبا كلمدود يا حياب الله ميدا أنت النبي قلت المام صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن معاني الدين تودن أي حنبار يسوع. أحاديث النوع جوامع الكلم كالنبي صلى الله عليه وسلم كمدنا qaar la ururiyay oo ahlulcilmiga qaarkood ay ururiyeen sida xaafid ibnu rajab iyo qayrkood iyo qayrkii, iyo qaar aan la ururin oo axaadiista faraha badan ee nebiga laga wariyay calayhi salaatu wasalaam ku dhex jira. intaba way leeyihiin. jawaamicdaas faraha badan runtii in laysdul taago oo majaalista cilmiga iyo wacdiga iyo isbaraarujintu inay ku salaysnaadaan hadalka nabiga sala allahu calayhi wacala aalihi wasalam. waxaa ka mid ah xadiiska fi saxiixi muslim xadiidka cabaas ibnu cabdilmuطalib radia allahu tacaala canhu
عم النبي صلى الله عليه وسلم نبي يقول ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وسطر واحدة. هذا حديث كاسو كليو ودينتي أردن أي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحكت الماما كعبري صدر إن لو قرأ أي كنت سامرك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيدنا لو اختصاري حديث كعمر بن الخطاب كمد رضي الله تعالى عنه وحوي في الصحيحين وغيره إنما الأعمال بالنيات. علماء الأهدان وحوصل نقرأ أكثر من 70 بابا من أبواب الدين يرجع إلى هذا الحديث وغير ذلك. أصحاب رسولك صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحيا قار خيرك كد دالا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويدية وحي أنفعي آخرية دون وحلا إذا قفك عقل جيسا وحلا قرتا هي وحا اهتمامات كوه سؤاله سألقا قرتا هذا دار توقف سؤال آدو اللي تكوي دينيا أما قلبي سام مرانو عن علم كتشرين أما عقلي سال اللي توقرات كفلا بانو اللهين وطهوري واسيدا دادك أيو بدينهين مركا علمي كفو قادين يا شرعي سؤاله هو سؤاله عن قيمة بدنو علمي اللهين لقى يابا الدنيا إيو وحس كده لتعدى إنه كساب سيهين بينما أصحاب رسولك صلى الله عليه وعلى آله وسلم ياركا خلاف صناعين سؤال بدن بان النبي ويدين شيرين oo runtii ku tusaysa in ihtimaamkoodu ahaa amru al-aakhirah cagsigeena oo ihtimaamkeenu uu yahay waxa inta badan inuu ku fakarayna illa man rahima rabbuh oo yahay umuur dunyawiyya munhatta سؤال رسولك ويدينا إن كتسي إن أمورته آخرة يكون تاعي أحكم الحديث كيف الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه نبي قوي يمدوي من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله رسولك إله يوم شفاعة هذا شفاعة قال صوم هذا يا أمضا نبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقد علمت أنه لا يسألني عن هذا غيرك لما علمت من حرصك على الخير وحن مليي وأن درين كيدا لها سؤاشا سوكلينا ويدينين أدق غيرك صابت روحيتها وأرنكا كوغوغا هي خير جعيلك لأن النبي سؤاشي بوغا جوابي يعني wuxuu ka fakarayaa Abu Hurayra soo dunyada jooga maalinta qiyaame marka nabigu shafaaca qaadi doono shafaacada cidda mudan ee gaaraysa haleelaysa marka nabigu wuxuu sheegay sallallahu alayhi wasallam su'aashan uu weydiinay Abu Hurayra su'aal aad u weyn inay tahay uu jawaabay markaas nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam as'adu an-nas bi shafaa'ati man qala la ilaha illa Allah khalisatan min qibali nafsihi ومثال مقصود كأنما حديث كني حديث كي ضمام بن ثعلبة في صحيح مسلم وفي الصحيحين وفي البخاري أيضا النبي يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويوحى في المية سات مقالد مدينة يمد النبي صلى الله عليه وسلم سات كيسيبو يمد موسوين مركبة وحويان أيكم محمد أي محمد مي لكن هلك فردية كيبا محمد نبي وجهه صلى الله عليه وسلم كدنا نبي السؤال ويدي فرائد دايو ويدي نبي عليه الصلاة والسلام وجهه وهكذا وأنا فربديهن سؤالها الصحابة والنبي ويديين صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن بحث لقسم ينا ويستاهلا والله أوروريو أسئلة الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم وحي وحوي سؤالنا قوم كريا كلام أنت سوى قال لك حديث كأنه دور نعى وإنه استلته إنه وحي وقت إنه سامح إلهنا سبحانه وتعالى إنه إذمه وحديث هنتي هذه أدوين عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام
صحابي ساورين يا حديث كنا وثابت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عقبة وحلاية هي قلت من نجاة يا رسول الله؟ رسولك الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدبادة محيطها من نجاته؟ بدبادة أنكو بدبادة يا آخرية أدون بأن بدبادة عذابك علي عقاب كيسا أنك بدبادة ومحي يعني محيطها وحيابها بدبادين وسؤال رمتيالي يا دوين وقفك آخرتي صوتنا رجينا لسانا رنتي وسؤال اكتساد يا دوين من نجاة يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام صدح ويرود كلية أيوسو خلاصي بدبايض وحي تهي صدح ويرود بيوسو خلاصي وحكم إذا مركا والسؤال تاكدوا يسألون النبي ويدي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أخبرني يا رسول الله بعمل إذا عملته دخلت الجنة أو يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. عمل إيش رسولك يا الله أن شننا كوجل نارنا يقدر يرينا ويسكن معنا يعني بدبادة وحي تهاي إن العقاب كي عذابك كبدبادة هدات كبدبادنا ما له دحي سامة شرته وحوي ده أهل الجنة دي النار لقى بدباديو شنا آيات كشيء هذا بصدق ذا ويراد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشاقي عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه أيين استلتاقينا محو النبي عليه الصلاة والسلام وحكول أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك وصدح جملة دود وحكول النبي عليه الصلاة والسلام أمسك عليك لسانك اسكقب عرب كاغا هذا بدبادة دون يسو عرب كاغا اسكقبو وليسعك بيتك قرقاغو لها كوكو في اللادو وابكي على خطيئتك قففكاغا يا الذنوب تادنا كثيرا يوضو كؤوي وكان دامود وصدح كلمة دود ورتي أينو باهناهي إن بدنا نسكوع العلينو قفكو إنو حفظيو وصدح كلمة دود هذا البدن ما لا يعني يبغى إنو حفظ سنة وأن قيمة بدن لهين مركز صدح ذا ويرود إن الحفظ ذو نرش هذا آخر هذا بوحبك على تريا تكون عمل فش طبعا مركز قضب بينه دول تاجدنا إن شاء الله تعالى ويدك واضح النبي يقول عليه الصلاة والسلام أمسك عليك لسانك عرب كاغيس كقبو نصوص رمضان با النبي كسر صلى الله عليه وعلى آله وسلم صحابتي سعود دردار ما إن عرب كودكات كذا نصوص طبعا كم إذا حديث معاذ رضي الله تعالى عنه ده بعض أصحاب السنن حديث كانوا مرة ويد آخرنا شطر أما قيبتي صهرة معاذ النبي وقول عليه الصلاة والسلام وحديث شيكتا شيء نارنا يقفوقين يا جننا يقلين يا نبي وحوش عليه الصلاة والسلام مركا فرائض دي إسلام كصلاة دي صوم كي زكاة دي أيوش جاي وحنو كل توجيهي وحوي أوامرتي شرعية أي النبي صلى الله عليه وسلم كوشاقي مركي وأنت أوشاقي بقى النبي كوري ألا أدلك على ملاك ذلك كله شيء أنكوسو شيء شرائع ذا فرها بدن مدحنا يو وذا قبصنا يا أما كوبيا أما كو وذا إلالنا يا مكوش شيء معاذ قلت بلى يا رسول الله وحنبي ها رسولك إلى يوم وحنبي يقول عليه الصلاة والسلام كف عنك هذا كف عليك هذا انت النبي وعربك إشاري
ayuu yidhi kaa iska qabo. Mucaad wuu yaabay oo wuxuu yidhi rasuulkii allow calayhi salaatu wasalaam, carabkaa waxaanu kaga hadlayna miyaa naloo qabanayaa? nebigu wuxuu yidhi haddaa dadka naarta maxaa ku gura? naarta waxa dadka ku gura waa carabadoodaasi waxay jareen. marka nebigu wuxuu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam in khayrka iyo salaada iyo soonka iyo zakada shayga wada hananaya kuu ururinaya kuu daboolaya inuu yahay carabkaasoo aad iska qabato. wuxuu la mid yahay gabadhii loo sheegay nebiga sala allahu alay wasalam, haweenaydii loo sheegay innaha taquumu alleyl wa tasuumu annahaar laakinaha tu'dii jiiraanaha. heblaayo habeenkii oo dhan way tukataa, maalintii oo dhanna way soontaa, laakiin waxay dhibtaa jaarkeeda. wa fii riwaayatin bilisaaniha, carabkay ku dhibtaa. nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam hiya fi nnaar laa khayra fiiha, waa ahlu nnaar, wax khayroo leedahayna ma jirto. marka wuxuu waafaqaya xadiiskan alaa adulluka calaa milaaki dalika kullih. marka waa wasiya min annabiy calayhi salaatu wasalaam liummatihi, uu u dardaarmayo inay kaa iska qabtaan xubintaa yar. waa akhtar shay cala alinsaan. xubintaa yar waa xubinta ugu dhibka badan ee bilaadanka qabsata. walihada nabiga sala allah alay slam waxaa ka ansaxay xadiis cabdullahi bni camr bni alcaas oo xadiisun xasan inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam man samata najaa, ka aamusaa wuu badbaadaa. ka aan aamusinna mafhuumku muxuu noqonayaa mafhuumkiisu dee ma badbaadayo. waa mafhuum shart. mafhuum shardiguna wuxuu ka mid yahay min aqwa almafaahiim. أضعفها اللقب وهو ماء من دونه نظم الكلام العربي أعلاه لا يرشد إلا العلماء ما لضعف أعلاه لا يرشده إلا العلماء ما لمنطوق بضعف انتمى فالوصف الذي يقاربه يناسبه. مفهوم الشرط ومعتبر عند أهل الأصول وحانو كمد يهي الدرجة الثانية من أقوى المفاهيم. marka mafhuum shartigu muxuu noqonayaa qofkii aamusi waaya ma badbaadayo uu halaagsamaya. طبعا فهو الغالب. ويعرض wuxuu yahay iyo loo filaan buu wuxuu yahay hadduu aamusi waayo oo wixii khayr ama wixii kale ka aamusi waayo wuxuu halis u yahay inuu taraaro. وقفك waxa laga yaabaa sida nabiga calayhi salaatu wasalaam ka ansaxday inuu kelmad iskaga hadlo laa yulqi laha baala, iska hadlaya yani isma kama fakirin kelmadiisa waxa ka dhalanaya. kelmadaasina waa kelmad min sakhat illahi azza wa jalla. kelmada daraadeed inuu naarta ugu hoobto. waxa ka mid ah xadiisu Anas radiyallahu ta'ala anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. إيمان أدون إيمانكي ما توسيو وضد ما قبصنا يتوبيه إلا قلب جيسو وتوصناده. قلب جيسو لما توصنانا إلا عرب جيسو توصناده إعوجاجك يا بيرك وكبيرو. وافق صحيح حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. النبي كوري صلى الله عليه وسلم قفك ابن آدم إذا أصبح ابن آدم مركا وابر يستقفك بلا آدم عرب كيسة أيا يسد اللي حبنه صوتا أيا يسد اللي عربك oo ku yiraahda waxaanu ku badbaadayno ama aanu ku sugnaanaynaa waa xaggaaga wixii ka yimaada. haddaad toosnaato
waanu toosnaanaynaa haddaad baydhbaydhana annaguna waanu baydhbaydhaynaa marka waxa weeye shayga haysta ee mulkiya bilaadanka gebigiisaba waa qalbiga iyo lisaanka ولهذا عربت يحولون جرين إنما الرجل بأصغريه قفك وحو وحكن نقضاء وقمهم ساني ما حوقي سي عضلات كي سيئو وبأصغريه لبدي سيرير القلب واللسان لبدا عص أي أما كركاك كويدارية أما وحوي توبيها كوسوها وحكى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كسو أروري حديث سهل بن السعد الصاعدي رضي الله تعالى عنه النبي عليه الصلاة والسلام من تكفل لي ما بين لحييه وما بين رجليه تكفلت له الجنة حيث ابن عباس نوال قوري أبو هريرة نوال قوري بألفاظ مختلفة حلي النبي صلى الله عليه وسلم يا إيبالن قاضية لبدي سادان وحي كتشرا إنو إلاليو وعربك إيا لبدي سلقود برتن كودا وحا كتشرا وحبنت ترنك رقيا ضمر كودوانا مع النغضي وأن شنو بالن قاضا لفظ أبي هريرة حديث أبي هريرة وحوها من وقاه الله شر ما بين لحييه وشر ما بين رجليه دخل الجنة قفك إلهي كبد باديو الشركة لبدي سادان دحدودا كجرا عربك waxa lagaga hadlay iyo labadii saabowdiyo dixdooda wixii ku jira qofka Ilaahay ka badbaadiyo jannadu galay rawaanti nusuustu way farabadan tahay ku soo aroortay wa qabla hada Ilaahay subhanahu wa ta'ala وحين أمري إنه توجيهي إن وحوي عربك يا لسانك لقات كذا والله يستو ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ووعيد كلمتكم قول إلا وحوي رقيب عتيد بعد أكتسا هذا وحكستو أتكو تلفظ وأتكو هذا الشو ولا قرية أما بتصو أما يريسو أما بتصو أما يريسو والو قريه عربك waxa lagaga hadlaa xubinta yar waa saddex qaybood mido wala maxala mamnuuc wa mashruuc wa mubaax shay mamnuuc lagu diiday iyo shay mashruuc lagu sharciyeeyay iyo shay mubaax ah ممنوع وحكمدا أما هالنقضة شيء مكروه أما شيء محرمة وأنا كلا دارين لكن واحد شملين ممنوع عليه بنتي بكمدا بنتو وشيء عفك لقش عرب كاير باكو قولا وأنا نوعا ممنوعة وأنا آثر تيجرتا ولا نقول ابتلاء بنتنا والإخبار بخلاف الواقع سيدي واقعها خلاف كيدو أتراه دوي لا ترى ما كان معلم بينو كل شرايا برقة ينشوجنا دوا بين ويوحي خلاف سنتا شيء واقعة وين هبين كل شرو بين تاسمة قيب سنتا ذاك قارب قيبيو هذا الكذب الأبيض والكذب الأسود بنت عادية بنت مدو وحيلا بنت مدو وتضدك كل بيسو تعادنا وتعدد وحبك يلين لكن ده بينه حاران إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله بنتها محرم وإن الرجل لا يزال يتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا قفكو كمسجول إنه بيشغل ولي بوكو دالو إلا لقى قرأ إلهي أكتي سينو يهي بين بدنه
aad bay noo badantay waxa shalay ilaa sheegay nin sheekha baa iga sheekaynayay xunimaan hawl u diray ayaan moobil kula hadlay waanan arkaa uu muuqdaa ana saa ku hawshay koona muslimiin meeshii aad hawshay iga dirtay ma taagan safkii baan ku jiraa imka marka moobilku wuxuu noqday meelaha ugu beenta badan ee beenta laga sheego qofku wuxuu isleeyahay qofkan aad la hadlaysaa kuma arkayo laakiin nasiya rabbah rabbigii buu ilaahay marka beentu jamiica suwariha wa muharram illa ma istathnaahu ash-shar' ala khilaf bayna ahli al-'ilm fi tahdidihi النبي صلى الله عليه وسلم وحاوت المامي إن أنو بين على أهين الذي يصلح بين الناس كذلك إصلاحنا يا ور لقاضة يسيو إصلاحيه وركاسي ظاهر كي صباح النقض كذب ويعفى عنه لكن وإن يتهين طريق كلواي لكن اسكم يسوي هذا كان كوكا لاغاجينيا waxa weeye shayga muharramka ah ee la soo istithnooday ama sharcigu soo istithnooday ama daruuratan loo soo istithnooday qadar bi qadariha qadarka looga baahan yahay ayaa laga kaaftoomaya ee la iskaga ma istirsalaya waxa kamid runteeduna aafa ah oo mamnuucaadka lisaanka kamid ah waxyaaba carabka laga hadlay muharramka al-ghiba حنت يقول رب تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ومحرم بركين ببركك ليا محمد حنت وامحي ذكرك أخاك بما يكره كما قال عليه الصلاة والسلام وإن شيكتو ولالك كشيكتو بما يكره والأخوة المذكورة هنا هي أخوة الإسلام وعليه فقد قرر أهل العلم أنه لا غيبة في الكافر بل قال بعض أهل العلم لا غيبة في المبتدع فكوح النبي كحد ذكرك أخاك بما يكره إن تكشيكتو ولالك كشيكتو وحو كراهي سنيو nabiga wala weydii عليه الصلاة والسلام waxa lagu sheegay haduu kuba sugan yahay ka waran nabigu wuxuu عليه الصلاة والسلام haduu ku sugan yahay waa ghiib hadaanu ku sugnayna waa buhtaan ya been abu rashd hantu marka waa kaba'ir adh-dhunub kamit wa ana shay lam yaslam minhu إلا الخلص من عباد الله ومن أراد الله له خيرا ولا قسم مي وحلقة يا بقفك هدو يستفقدوا ما لنتي يا هبينكي هدو يصفي صداء مع ثلاث كضوبه وحلقة الساعات والبين عيد حملي وحين كم يتهاي حيبا لو متستعذ بالقبر naartana waxyaabaha lagu galo hadaan qof ka toobad keenin ama Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu dambi dhaafin waxa ka sii daran ghiibada noocaas in diin laga dhigo dadka qaarkood labas عليهم iblis ودوادنا ay dadkii muslimiinta ahaa أي عرب كود الله دحرعان واللسان كالسيف عربكم سيفت لمده بل هو أشد منه marka inta tadayun laga dhigto oo libaas sharciyan la huwiyo oo la yiraahdo hebel ka waran hebel waa sida ay sida hebel ka waran waa nooca iyo nooca walilasaf dad badiyana ka dhigtay waxana khilaafsan tahay tariiqadoodaasi tariiqadii salafkii ummadan oo in carabkooda ka adkaayeen oo iska ilaalin jireen inay waqiica ku sameeyaan ummadda umuman
dadka saalixiinta ee wanaagsanna gaar ahaan inay iska ilaaliyaan. الإمام البخاري رحمه الله وحاول ما اغتبت أحدا منذ أن سمعت أن الله عز وجل حرم الغيبة. مركي لقب الله ومركي عن مقلي إن إلهي حرمي غيبة ذا ولقعد محمد. الإمام عبد الرحمن ابن محمد الرازي ابن أبي حاتم صاحب كتاب الجرح والتعديل قصة يا لقى صورية نصالحين تكمل أو يمد سو كتاب كسالفة كتاب كنا كتاب الله وطلق علي رواد أما النقلات صون نقل سي حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن حكم كوضا لو شيغو أو لك له فوق أو كان صالح وحين إنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم لو آمنه لا شيغو حكم كيسا كان لو آمنه كان لا شيغو شيخ أسوي من وحول ما هذا الكتاب الذي بين يديك يا عبد الرحمن؟ كتاب كوريا الله وامحي وهي كتاب صنفته في أحوال الرجال وكتابا كقري حالدها رجع صوري حديث كالنبي صلى الله عليه وسلم. أما تستحي يا عبد الرحمن بكور؟ عبد الرحمن ماذا حشوني؟ تتحدث وأنت في الأرض من أناس قد حطوا رحالهم في الجنة منذ 200 سنة وأنت تغتابهم في الأرض. عبد الرحمن ومياذا حشوني واحد حماق وحوي وحكى شيء جيسا داد لا بقول سنوات كهر شنّا جوجشودي دكتي أيها الأدوار وحكى شيء جيسا هذا عبد الرحمن وحو شيء هو مشروع واتفق أهل العلم على مشروعيته وإن لك لصار رواد ضعفاء أي صالح وهين حديث كرسول الله صلى الله عليه وسلم حنباران يكون صالح حين صار ودين وجوز الجرح لصون الملة كما قال السيوطي في ألفيته جرحك وحلو بني ملة إلا لغو إلى علينا شرعك لغو إلى علينا ومفسدتان بيسكهر يمد قاعدون حيث وارتكب الأخف من ضرين وخيرا لدى استوى هذين. هذه لما شيء دبكود لما دبكوي مادان كود السهل بالله ارتكابيا. تشرع هذا وحنا كم داين اللي بحلقوا صدره وحنا كم دهين وحديث عن سجون النبي الله تيريا ومفسدة. قفك مسلم كا الشيخ هانا إن وحلق الشيء هو ضعيف هنا ومفسدة وارتكب الأخف من ضرين وخيرا لدى استواء هذين ما كثير يتبع لقول عيا والله بنيسانيا لكن بقيودها وبضوابطها ضوابط هي قيود وحنبقى أنت الديانة يا لك بق سيدا واحد ذاك دانيران أنت مقاحية فريستان هبل وكذا هبل مبتدع هبل وحزب هبل وكذا ما لا يعني عين الشبان هذا ليس بالدين هذا ليس بالدين وليسوا أصلا أهلا لذلك اهلبوا معها هذا من ابتلاء الله عز وجل لعباده. مركز غيبة وحي كم تهاي محرم أما تهدى بالتأويل هالنقطة أما تهدى بدون تأويل هالنقطة محرم إلا ما استثني من ذلك. وحكم إذا من ماذا؟ ينقل الأخبار وما أدراك أخبار وشقدين خاصة هذين الصومالين شقدين رقم واحد كاه ووركين لك على النقليو وسيدي دبا ولبا waa laga yaabaa de halkan aad joogtaan mala adduunyada ay ku yara badan oo wala faydan yahay oo wala yaacay oo wala shaqaysanaya laakiin wadankii ama Soomaaliya hadaad eegto dadka dhalinyarada ama dhexdhexaadka ah boqolkiiba 70 maqaaxiyaha la fadhiya sideeda subaxnimo la soo fadhiisanaya duhurka laga rawaxaya baad casarka lagu soo noqonaya cishaha laga rawaxaya inta maxaa la hayaa waa naqlu al-akhbar waxa salayeen waxana leeyeen markaasay TV-yana u samaysteen Soomaalida TV-yada min awwalihi ila aakhirihi waxa laga hadlaya illa man rahima Allah ma doonayna camimno sharka inaynu camimno laakiin gaalibkaynu ka waramayna
ونقل الأخبار ولبا يا ليت طوعا لها نقل خبر سديسي لو نقلي نميمتنا ونقل الأخبار على وجه الإفساد. الإفساد لو قد شهدوا يعني نقل أخبار مجرد ما انتهي بالبالكامري ما ها نميمة، ونميمة وحوي ونقل الخبر على وجه الإفساد لو نقليه أدي أدباني وبضمت وحكم إذا وحيابا الله يسوق الدريو أما جروب بدأ أما وحيابا الله متك وسائل التواصل الاجتماعي ما السوشيال ميديا وحكم إذا بوابة أما الباب شرف ربضان وما ضوفري نفع فربضان ولي لكن إن بدنوا كم إذا مجتمعوا وحوادي يكسد لين عحل أما بين بالسوق بيا أما وراء فاسدة للسوق بيا وراء شرين بالسوق بيا حكومة ذا اللي واقف كم بيا وهكذا. مركن نقل الخبر كنا حكم دي هاي وتصال يعني وبدأ وحكستو شرع وحرمي وعرب كلا قولا ومحرم وحلم إذا مشروع فربدية طاعة كستا أو لسان كلا جودنا ومشروع أما واجب النقطة أما سنة النقطة إيمانكم هو قول وعمل قول وعمل عند أهل السنة والجماعة قاطبة الإيمان قول وعمل. قولك وحكم إذا قول القلب وقول اللسان قلبك قولك تصديقه هي قول اللسان نطق بالشهادتين وسائر الطاعات وحويه وشيء أفكى اللسان كلا يقول بينهم تسبيح دي بكم إذا تهديش بكم إذا وحكم إذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حبها صدق مشروع قفك مسلم كإلهي خير لدونينا وكعرب كيسا محرمات كان كإلالية كنا تربية ديالية إنه طاعة لازمه وحلس كدون دونا معها طاعة ولهذا وحل ركز عددك قار كود وقت أثمن ما يكون وقت فضيلة لا يستطيع أن يذكر الله عز وجل 10 دقائق 8 دقائق لا يحصل بروي كغادكت لكن 8 ساعات إنه شاكايا آدي أدبي سهلنت وعبد محروم خير كبا لغا حرمي وحكنا لغا ما حرمينه بسبب ذنوبه ذنوبتيسي أيها حوي خير كي كحرمتين marka waaqicina baleega 10 daqiiqo masaajidka ku sii yara joogto aad akhrido juz barkiyo quraana ama 2 safxadood aad akhrido laguma ogola ka xaqu qabanaya qaxida ka soo jeedo fariisanaya wa abdun hurima min alkhair khayrki baa laga hor istaagay marka arabka ku mashquuli oo qabadsi oo mujaahad u baahan yahay haddaad aragto adigoo xamaanaya ka joog dikriga ilaahay u bedel adigoo maala yacni laqwi ka sheekanaya jooji u bedel markaad maca alayaam waida calima allahu sidqa niyatik acaanaka calaa dalik marka mujaahaday u baahanta waxaad arkaysa dad carafa jooga carafa oo dadka qaarkood malaayiin waxay u soo bixiyeen $10 u soo bixiyeen si ay maalinta oo ka bilaabmaysta 12 duhurnimo wixii ka dambeeya zawaalka qorraxdu markay suusho ilaa ay qorraxdu ka dhacayso waa 6 ama 7 saacadood tawqiidku marbasi 6 saacadood baa arkaysaa dad intay ku badatay qaar turb ciyaaraya qaar wareegaalaysanaya qaar moobile iyo sawiraan iyo inay moobile hadlaan carafaan taaganay iyo istusnimo waqti ka galan waa abdi mahruum حرم من الخير خير كيبا لو ديدي waayo markii uu joogay magaaladiisa Nairobi uu joogay ayaanu naftiisa khayrka ku tarbiyaday marka Carafa marka la joogo de waa ciid iyo ciid yani Carafa de waxay wax la dheer tahay waa li ajli taaca ilaahay baa ka taaca ka yeelay walihada maalinta tobnaad istaaga ala wajhi cibaadada loo istaaga waa bidcaba maalintaas cibaadada ku eegta marka waxay miisa ku yeelatay waxa weeye waa taacada ku tacalluqday ilaahay uu ku xulay marka hadaad Nairobi markaad joogtay naftaada taaca ku tarbiyadeyn weeday ciida Carafa intay soo qaado taaca ku geeysin meesha waxaad ahayd baad noqonaysaa taas waxay marka la mid tahay qofku marka malakumoodku ku soo dago de wixii waxa qalbigu halkan uga buuxay baa soo booday
aakhira markuu yimaadana wuxuu la soo shirtagayaa wixii uu shaqaystay hadduu khayr yahayna khayr buu la kulmayaa marka inta halkan la joogo hadda xubintaa yar intaa leeg ee saa isaga dhaqdhaqaaqaysa haddaad ka adkaan weydo waxa aynu sheegayna mid unbaad noqonaysaa labada qolo waxaa ka mida shay mubaaxu markaa laba u qaybsamaa mubaax qusida bihi الطاacة aw iqtarana bالطاacة kaas waxa weeye ma'juur waxa weeye qofkii dayfka ahaa ee kuu yimid inaad u sheekayso xaaskaagii inaad u sheekayso ciyaalkaagii inaad u sheekayso kalaam mubaaxa haddii qaradkaaga iyo ujeeddadaadu uu yahay inaad ilaahay ugu dhowaato oo dee dayfka waxa layna amray in la ikraamiyo ikraamkana waxaa ka mid in loo sheekeeyo marka hadalka aad ugu sheekaynaysaa daatadiisu taaca ma aha laakiin wixii la xidhiidhay iyo niyadii ayaa taaca u beddelaysaa wanniyatu tajcalu alcaadata taacatan markii niyo loola yimaado mubaaxa waxaa ka mida nooc basasadiisu ay ku gayaysiinayso inaad kii muxaramkaa ku dhacdo oo haddaad maalayacniga badsato iska hadalka aad maanta o dhan iska duryamayso dee hadalkaa mubaaxa aad iskaga hadlaysaa daatadiisu uma aha muxaram laakiin waxaad u dhowdahay xubintan yar aad ka adkaan weyda iska hadlaysaa inay marka dambe kula gasho seerihii xaaraanta ahaa waxaa ka mida marka isaguna mubaaxii iska caadiga ahaa ayaa ka mida marka waxaad moodaa qodobka aynu ku yara dheeraanay waynu iska dhaafaynaa ujeeddaduna waxay tahay haddaba leega hadalkii nebiga sala allah alay wasalam muxuu ku yidhi amsik calayka lisaanak haddana waxaynu iminka ka sheegnay waa nasrun yasiir jiddan aynu ka baraarujin oo laga yaabo muxaadarada badankeedii baynu qaatay marka waxa laynooga baahan yahay ujeeddaduna ay tahay waa isbaraarujine carabka aynu ka adkaanno waa haddaynu maxay doonayno inaynu badbaadno waayo man najaatu buu yidhi cuqba radia allahu tacala canhu nebigu wuxuu ugu jawaabay amsik calayka lisaanak waa qodobkii ugu horreeyey marka haddaad badbaado doonayso oo aad rajo ka qabto aakhira iyo inaad badbaado kaa ka adkow mamnuucana ka ilaali laqwigana iska ilaali oo yarayso waayo qalbigu madaakhil buu leeyahay madaakhil dhagaha indhaha carabka marka madaakhishaas ta'hiir qawiya bay ku leeyihiin qalbiga haddaad indhihii wax walba iskaga eegto oo muxaramaadkii aad iska daadaawato qalbigaagii baad sihaam iyo warma la dhacaysaa laakiin isma ogid waxaa laga yaaba ilaa uu ka dhintay inaadan ogeyn waxaa laga yaaba ilaa niyo hebel wuu wanaagsanaa laakiin uu iskaga tegey khayrkii iyo wanaaggii ma aha habeen kumay soo boodin waxa weeye warmaa ka horreeyey uu la dhacayay qalbigiisa dhegihii xumaantii oo la iska dhegaysto heesihii muusigii qurunkii waxa weeye madaakhil qalbigii baad dhaawacaysaa carabka waxaad kaga hadlaysaana ta'hiir mubaashira buu ku leeyahay qalbiga marka adigu ama qalbigaaga u danee ama dhaawacoo ka takhallus xataa yamuut walciyaadu billah waxaa kaloo nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam waliyasacka baytuk gurigaagu ha kugu fillaado ahlulcilmigu laba macnay ka tilmaamaan macna waa macnaha mutabaadirka ee mashhuurka ee odhanaya waxa weeye xadiisku wuxuu daliilu yahay cusla ka dheerow dadka wahada laa yakunu illa fi awqaati alfitna in qofku ka dheeraado dadka intuu iskaga dhex baxo khuldadooda gurigiisa uu laazimo oo dadka iskaga dhex baxo macno kale culimmada qaarkood way tilmaameen oo ah gurigaagu ha kugu fillaado yacni gurigaaga ka adkow awlaadaada ubadkaaga dadka gurigaaga wanaaji
oo gurigaagu ha kugu filaado ha ku deeqo gurigaagu iyo ololaya meel kale wax ka soo qabanaya ha oran macnaha hore mutabaadirka nusus badan baa ku soo aroortay oo nabiga kaleey salaatu wasalaam xadiiska Abdullah ibn Amr ibn al-Aas inda al-Hakim wa hadith thabita an Rasuulillah sallallahu alayhi wasallam wa nabigu idha ra'ayta Abdullah ibn Amr ibn al-Aas baa nabigu la hadlaya haddii aad aragta Abdullah ibn Amr ibn al-Aas iyadoo dadka ballamahoodii ay noqotay qaar aan la oofinayn oo ballantii la iska galay la oofin maayo ammaanadoodiina ay khafiifto oo cid wax lagu aaminaba la garan waayo intaa haddaad aragto amsik wa fi riwaaya amlik calayka lisaanak carabkaaga qabso والزم بيتك كرجاجنا لازم وخذ ما تعرف ودع ما تنكر وعليك بخاصة نفسك ودع أمر العامة نبي قال له المامي وحول مكة سفوي كادتك كو أركتو يدو بلمهودي يوعودودي يعقودودي أي نقطة قارن له فيني وما أكثرها اليوم isagoo 2 kilomitir u jira ayuu oranaya 2 daqiiqo kadib oo kula jooga waa beent iska balan been weyn waana calaamadaha munaafiqiinta kamida nifaaqa amaliga wuxuu nabiga kaleey salaatu wasalaam amaanadoodiina ay khafiifto waxaad samaysaa Abdullah ibn Amr ibn al-Aas arabkaagana ka adkow gurigaagana laazim oo ha ka soo bixin sidaas lamida waxaad garanaysana qaado oo waxaad ku sameynayaan ama waxa aad aragtay sameynay wixii wanaagsan ka qaado wixii aad inkirtana iskaga tag naftaadana ku mashquul dadka iyo umurtooda iyo caamad u kala dhaxba marka nusus badan baa ku soo aroortay cuslada culimada waxay yiraahdaan arrinkaasi cusladu waxa weeye tacaamka oo fitan iyo qofku diintiisa u baqo ومشروع يوتاي عزلين ولا يمادو أما عند فساد الناس وتقول هذا فساد إنه قد يحبع جورجيس لازمه واجبات كانوا وجتو معناها كلا حديث علماء قاركون كفسرين نصوص بدن بيسقون اللي هي وحوي إن لقات كادو جورجيها الإصلاحية نصوص فرا بدن باكسوار وقتين قدم كوجودن بيا النبي عليه الصلاة والسلام عقبة وكلتلي ونشاقي أن أسباب تبدأ كميتها هاي وابكي على خطيئتك وابكي بكاغو بمعنى الندم أي اللغة شيء ذلك أما حتى هذا لوازم الندم تيرانيا ذا كمرغوش لقم مرغوش الشيء دوحو كينايو كدشا وهم بكدشا marka gafafkaagana la ooy taasi macnaheedu waxa weeye biikhtisaar dunuubtaadana ka soo noqo ka soo dhaxbaxo ilaahay u soo noqo toobadkeen marka meeshii ugu sareysay ba wadaka nabiga kaleey salaatu wasalaam ka saadaynu annadamu tawbah tiraayada laga tiraayo dambigii aad samaysay bihad dhaatihi ba tawbada وايد قفتي رايسا وكجبنايا ولهذا حديث كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه في قصة تخلفه عن غزوة تبوك محيولي مركي النبي أمري استجا إياه لبدي صحابية مرارة بن الربيع العمري هي هلال بن أمية الواقفي لبدي الصحابي ayaa kacab ka sheekaynaya oo wuxuu leeyahay markii nabigu dadka u diiday in la hadlo labada saxaabi ee Murarata ibn al-Rabi' al-Amri iyo Hilal ibn Umayyah al-Waqifi waxay hayeen laba nin oo waaweyn oo ragii waxa way Badarna ka qayb galay ahaa guryahoodii bay fadhiisteen waanay ooyayeen muddada kontonka habeen ee la yiri aan la hadlin nimanka لما كتخلف في غزوة تبوك من خيار الصحابة كمدها
اللي markii leeyaan lala hadlin labada saxaabi waxay sameeyeen inay ooyaan mudada inta leeg ahlu cilmigu waxay ka qaateen marka sida xadiiskan oo kale in waxa weey qofku uu gafafkiisa la ooyo ilmadaasina aad la ooyday gaf aad samaysay aad la ilmaysay taasa laga yaabaa ilaahay jannada ku geliyo ma sahlana ولهذا قفك مؤمن كأه إدم بابا وحوي مرارة إيه حرارة وقلبك يسوكو بنيو قد تكون أفضل عند الله من طاعة الطائعين وهي قفك يسوي صفقة لو كنت كان يحلق يبقى غرور كدعو لكن كان جبنيا إدم بيجي ولا يمدلك جبنيا كسر نقنيا وحلق يا بيني أنفعهم أما أي نقطة أفضل عند الله عز وجل من الطاعات ما نقرأ نسيت وحوي عمل كات شنكو جليس ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق أو طليق كما قال عليه الصلاة والسلام مركا قضب كصدحات النبي كلته لي عقبة رضي الله تعالى عنه يسوون وقضب مهمة ولو باهي قفك مسلم كاي نفتي سينو لا حساب تمو marka dambi ka dhaco dambigi uu ka soo noqdo naftiisa uu ka warhayo naftani wa ammaratun bisu xumaan bay ku faraysa yeesha bas khatimina adanka soo hadii baad adanka hadii soo marka insha Allah taala waqtiga adanka taagan kelmaduna waa kelmadaan ugu tala galay tanbiih iyo inaynu isku baraarujino naftayda yatiinaba aan ku waaniyo ilaahay subhanahu wa taala waxaan ka rajaynayaa in كلمة عن شيء وحين كوجفي إلهي سبحانه وتعالى يدم بدافو يجنيه كوجو مدن وحوي كوا نقاطة أفكستو مقلية قول كي وجارنا وحن كوانينا يا إنه كعمل فلو ونفتي سوي عليه أو وحوي كود داله حياة بدبادنا يا ما أنت قيامه أنت ستصورنا يا فما كان من صواب فمن الله وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريئان منه وصلى الله وسلم وبارك على عبده وخليله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقفكو حلقة يابا النبي عليه الصلاة والسلام كان صحدين إنه كلمة اسكاها الله لا يلقي لها بالا اسكاها الله يعني اسماء كمان فكرين كلمة دي ساوحة كدلنا كلمة دا سنوى كلمة من سخط الله عز وجل كلمة دا درادت إنه نار توقوه هبطو وحكم إذا حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه إيمان أدون إيمان كي ما توسيو وضد ما قبصنا يتوبيه إلا قلب جيسو وتوصناده قلب جيسو لما توصنانا إلا عرب جيسو توصناده إعوجاجك يا بيرك وكبيرو وافق صحيح حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه النبي كوري صلى الله عليه وسلم قفك ابن آدم إذا أصبح ابن آدم مركا وابر يستقفك بلا آدم عرب كيسة أيا يسد اللي حبنه صوتا أيا يسد اللي عربك oo ku yiraahda waxaanu ku badbaadayno ama aanu ku sugnaanaynaa waa xaggaaga wixii ka yimaada haddaad toosnaato waanu toosnaanaynaa haddaad baydhbaydhana annaguna waanu baydhbaydhaynaa marka waxa weeye shayga haysta ee mulkiya bilaadanka gabigiisaba waa qalbiga iyo lisaanka ولهذا عربت يحولون شرين إنما الرجل بأصغريه قفك وحو وحكون نقضاء وقمهم ساني ما حوقي سي عضلات كي سيئو وبأصغريه لبدي سيرير القلب واللسان لبداس
ayaa ama karkaarka ku weydaariya ama waxa weeye toobiyaha kugu suga. waxa kaloo nabiga sallallahu alayhi wa alihi wasallam ka soo arooray xadiiث Sahl ibn Sa'd as-Sa'idi radiyallahu ta'ala anhu النبي عليه الصلاة والسلام من تكفل لي ما بين لحييه وما بين رجليه تكفلت له الجنة. حيث ابن عباس نوال قوري أبو هريرة نوال قوري بألفاظ مختلفة. حلي النبي صلى الله عليه وسلم يا إيبالن قاضي لبدي سادان وحي كتشرا إنو إلى عليو وعربك iyo labadiisa lugood bartankooda waxa ku jira waa xubinta taranka rag iyo dumarku doonaba ha noqdee oo aan janno u ballan qaadaa. lafda abi hurayra hadith abi hurayra wuxuu ahaa man waqaahu allah sharra ma bayna lihiyayhi wa sharra ma bayna rijlayhi dakhala aljanna. qofka ilaahay ka badbaadiyo sharka labadiisa daan dhexdooda ku jira carabka waxa lagaga hadlay iyo labadiisa bawdiyo dhexdooda wixii ku jira qofka ilaahay ka badbaadiyo jannadu galay. rawaantii nusuustu way fara badan tahay ku soo aroortay. wa qabla hada ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu ina amray inuu tawjiihiyay in waxa weeye carabka iyo lisaanka laga adkaado la haysto. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ووعيد. كلمتكم قول إلا وحوي رقيب عتيد به أكتسا هذا وحكستو أدكو تلفظو وأدكو هذا الشو ولا قرية أما بطسو أما يريسو أما بطسو أما يريسو ولا قرية. عربك waxa lagaga hadlaa xubinta yar waa saddex qaybood mido wala maxala mamnuu' wa mashruuc wa mubah. shay mamnuu' lagu diiday iyo shay mashruuc lagu sharciyeeyay iyo shay mubah ah. ممنوع وحكمدا أما هالنقضة شيء مكروه أما شيء محرم وأنا كلا دارين لكن واحد شملين ممنوع عليه. بنتي بكمدا بنتو وشيء عفك لقش عرب كاير باكو قولا وأنا النوع ممنوعة وأنا آثر تيجرتا ولا نقول ابتلاء. بنتنا والإخبار بخلاف الواقع. سيدي واقعها خلاف كيدو أتراه دوي. لا ترى ما كان معلم بينه كل راية برقة ينشوجنا. دوا بين. ويوحي خلاف سنتا شيء واقعة وين الهبين كل رو. بين تاسمة قيب سنتا ذاك قارب قيبيو هذا الكذب الأبيض والكذب الأسود. بنت عادية بنت مدو وحين بنت مدو وتضدك كل بيسو تعادنا وتعدد وحبك يلين لكن ده بينه حاران. إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. بنت محرم. وإن الرجل لا يزال يتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. قفكو كمسجول إنه باشا ولبا وكود دالو إلا لقى قرأ إلهي أكتي سينو يهي بين بدنه أد بينه وبدنت وحشل إليه الشيء ينب شيء خبيجة شيء كينه حنما نحاول ودري أيان موبل كل هذلي وأنا أركع ويوم وغدا أنا سأقول هاوشة كانوا مسوين ماشي على هاوشة يقدر تيجي تاجر وصفكي ما كنتش رايمك مركا موبل كوخ النقطة ما لها وجود بنت بدنا بنت لقى شيء قف كل حسلي قف كان الله يساق ما أركيه لكن نسي ربه ربي يجيب الله
marka beentu jamiica suwariha wa muharram illa ma istathnaahu ash-sharc ala khilaf bayna ahli al-ilm fi tahdidihi. النبي صلى الله عليه وسلم وحاوت المامي إنه بين على أهين الذي يصلح بين الناس كذلك إصلاحنا يا ور أكلقاض يسوء إصلاحيه وركاسي ظاهر كي صباح النقد كذب ويعفى عنه لكن وإن يتهين الطريق كلواي لكن اسكم يسوي هذا كان كوكا هاجينيا waxa weeye shayga muharramka ah ee la soo istithnooday ama sharcigu soo istithnooday ama daruuratan loo soo istithnooday qadar bi qadariha qadarka looga baahan yahay ayaa laga kaaftoomaya ila iskaga istirsalaya waxa kamid ah runteeduna aafa ah oo mamnuucaadka lisaanka kamid ah waxyaaba carabka laga hadlay muharramka al-ghiba حنت يقول رب تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا محرم بركين ببركة كليان محمد حنت وامحي ذكرك أخاك بما يكره كما قال عليه الصلاة والسلام وإن شيكتو ولالك كشيكتو بما يكره والأخوة المذكورة هنا هي أخوة الإسلام وعليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد وحا إلهي سبحانه وتعالى مهديئة عاوة وبشا ذي القعدة أي تهي طبني لبا إنه مرتين وقيه مسجد أبي بكر الصديق الإسلامي معالي الدكتور فيصل محمد علي أبو حذيفة مدير جامعة النجاح في برعو وكمدة علماء ذي كسوة تخرجتي الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة كلية الحديث الشريف والدراسات الإسلامية aad iyo aad baan ugu faraxsannahay imaadkiisa waana soo dhaweynaynaa ahlu cilmiga isaga la midka ah inay yimaadaan oo cilmigooda ummadda ay ugu faa'iideeyaan runtii waa madlab aad u weyn khaasatan talabada cilmiga aad iyo aad bay ugu baahan yihiin waadurarta oo Sheekh Umar Faaruq alayhi raxmatullaahi u dhihi jiray muxaadaraadka waxaa laga helaa sanata cilmi aad sanad ku heli lahayd ayaa hal muxuu ahaa maalin aad ku helays ama labeen marka insha Allah ta'ala cinwaankana wuxuu noqon doonaa ta'ammulaatun fi hadiithin jaami' marka sheekha دكتوركم waan soo dhaweynaa falyatafaddal mashkuuran ma'juura. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده وخليله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد الله مهد سبحانه وتعالى إنه كل ميي مساجد كان أبو بكر الصديق نيضا تاريخ السيرة الشيعي عاوتها إلى بيت وكيد القعدة عام 1437 للهجرة. run ahaantii waqtigoo iska kooban waxaan doonayaa insha allahu tacaala in aynu wada diraasayno xadiid ka mid ah axaadiista nabiga sala allahu calayhi wacala aalihi wasalam. khayr oo dhanina wuxuu ku jiraa kitaabka rabbi iyo axaadiista nabiga sala allahu calayhi wacala aalihi wasalam. qofka muslimka ahina hanuun ka suuli maayo inta uu labadooda ictisaamayo oo uu qabsanayo kitaabka iyo sunnada inta uu ku dhagan yahay iyo fahamkii saxiixa ahaa ala ahlul cilmigu ay ku fasireen ama ay ku sharaxeen nusuusta sharciga ah inta cumdadiisu ay taa tahay
biidni illaahi tacaala wuxuu ammaan ka haystaa baadi iyo lunsanaan iyo inuu siraatulmustaqiimka ka dhaco ammaan buu ka yahay. waxaynu ognahay rasuulka sala allahu calayhi wacala aalihi wasalam inuu lahaa khasaa'is fara badan iyo waxyaaba uu la gaar ahaa oo ummaddu aanay la wadaagin. waxaa ka mid ahaa khasaa'ista annahu ikhtusira lahu alkalaamu ikhtisaaran wa jumica lahu alkalaam, in khasaa'istiisa ay ka mid ahayd nebiga sala allahu alay wasalam in hadalka loo ururiyey oo kelmad iyo laba kelmadood iyo waxyaabo la mida inta uu nebigu tilmaamo sala allahu calayhi wacala aalihi wasalam inay macaanidii diinta oo dhan ay xambaarayso. axaadiista noocaasa ee jawaamicilkelimka nebiga sala allahu calayhi wasalam ka midana qaar la ururiyey oo ahlucilmiga qaarkood ay ururiyeen sida xaafid ibnu rajab iyo qayrkood iyo qayrkii, iyo qaar aan la ururin oo axaadiista faraha badan ee nebiga laga wariyey calayhi salaatu wasalaam ku dhex jira, intaba way leeyihiin. jawaamicdaas faraha badan runtii in laysdul taago oo majaalista cilmiga iyo wacdiga iyo isbaraarujintu inay ku salaysnaadaan hadalka nebiga sala allahu calayhi wacala aalihi wasalam. waxaa ka mid ah xadiiska fi saxiixi muslim, xadiidka cabaas bni cabdilmuطalib radia allahu tacala canhu camu nabiy sala allahu alay wasalam, nebigu yidhi daaqa طacma aliimaan man radya biاllahi rabban wbilislaami diinan wbimuxamadin sala allah alay wasalam rasuula. waa sadar waaxida. haddana xadiiskaasoo kale iyo waa diintii oo dhan ayaa nebigu sala allahu calayhi wacala aalihi wasalam wuxuu ku tilmaamo ku cabiray sadar in lagu qoro. waxay ku tusaysaa marka nebiga sala allahu calayhi wacala aalihi wasalam sida hadalka loogu ikhtisaariyey. xadiidka cumar ibnu khataab baa ka mida radia allahu tacaala canhu, waxa weeye fi saxiixayn wagayrih, inama alacmaalu binniyaat. culimmadu ay yidhaahdaan waxaa u soo noqonaya akar min 70 baaban min abwaab اddiin yarjic ila hada alxadiid wagayri dalika. asxaabta rasuulku sala allahu calayhi wacala aalihi wasalam waxay ahaayeen qaar khayrka ku dadaala. nabigana sala allahu calayhi wacala aalihi wasalam weydiiya wixii anfacaya aakhira iyo adduun. waxaa la yidhaha qofka caqligiisa waxa laga gartaa iyo waxa ihtimaamaadka u ah su'aalihiisaa laga gartaa. haddaad aragto qof su'aal aad u liidato ku weydiinaya ama qalbigiisaa madhan oo aan cilmi ku jirin ama caqligiisaa liito garaad ku filan baanu lahayn. oota hore waa sida dadka ay u badan yihiin markay cilmigii ka fogaadeen iyo sharcigii, su'aalahoodu waa su'aalo aan qiimo badan oo cilmiya lahayn, laga yaaba adduunyo iyo wax iska dhalanteeda inay ku saabsan yihiin. baynama asxaabta rasuulku sala allahu calayhi wacala aalihi wasalam ay arrinkaa khilaafsanaayeen, su'aalo badan baanay nebiga weydiin jireen oo runtii ku tusaysa in ihtimaamkoodu ahaa amru alaakhira. cagsigeenna oo inaga ihtimaamkeennu uu yahay waxa inta badan aynu ku fakarayna ilaa man raxima rabbuh uu yahay umuur dunyawiya munxata. su'aalaha ay rasuulka weydiinaya inay ku tusaya in umuurtoodu aakhira ay ku xidhan tahay. waxaa ka mid xadiiskii fi saxiixayn xadiidu abi hurayra radia allahu tacaala canhu, nebiga uu yimid oo yidhi man ascadu nnaasi bishafaacatika ya rasuula allah. rasuulkii ilaahayow shafaacadaada aad u shafeeco qaadaysa ummadaada yaa u mudan. nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wacala aalihi wasalam laqad calimtu annahu laa yas'alunii can hada gayruk lima calimtu min xirsika cala alkhayr. waxaan maleeyey oo aan dareenkeeda lahaa su-aashaasoo kale inaanu weydiinayn adiga khayrka. sababtuna waxay tahay waa arrinkan kugu ogahay khayr jacaylka ah. deedna nebigu su-aashii buu uga jawaabay.
يعني wuxuu ka fakarayaa Abu Hurayra soo adduunyada jooga maalinta qiyaame marka nabigu shafaaco qaadi doono shafaacada cidda mudan ee gaaraysa haleelaysa marka nabigu wuxuu sheegay sallallahu alayhi wasallam su'aashan uu weydiinay Abu Hurayra su'aal aad u weyn inay tahay وجاء مركز النبي يقول صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعة من قال لا إله إلا الله خالصة من قبل نفسه ومثال مقصود كأنما حديث كان حديث كي ضمام بن ثعلبة بصحيح مسلم وفي الصحيحين أيضا وفي البخاري أيضا النبي يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولو عن ريرمية ساتي مغالدي مدينو يمد النبي صلى الله عليه وسلم ساتي سيبو يمد مو سوينا مركبة وحويان أيكم محمد أي محمد قول القلب وقول اللسان قلبك قولك تصديقه هي قول اللسان نطق بالشهادتين وسائر الطاعات وحويه وشيء أفكا اللسان كلا يقول بينهم تصبيح دي بقى كميدا تهديش دي بقى كميدا وحكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حبها صدوا مشروع قفك مسلم كإلهي خير لدونينا وكعرب كيسا محرمات كان كإلالية كنا تربية ديئية إنه طاعة اللازم وحلس كدون دونا معها طاعة ولهذا وحل ركز عددك قار كود وقت أثمن ما يكون وقت فضيلة لا يستطيع أن يذكر الله عز وجل 10 دقائق 8 دقائق لا يحصل بروي كغادكت لكن 8 ساعات إنه شاكايا آدي أدبي سهلنت وعبد محروم خير كبار لك حرمين وحكنا لك محرمين بسبب ذنوبه ذنوب تيسي أيها حوي خير كي حرمتين لك واقعين بلاغة 8 دقائق مساعدك سيرة شوكتو هذا أخذه جزء بركي وقرانا أما لبا صفحة هذا أخريدو لقوم أقول كع 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 حقوق بنايا حين قسوة جدو فريسانيا وعبد حرم منه الخير خير كبار لقاه الاستاغي مركا عربك كن مشغول أو قبتسي أو مجاهد وباهية هذا أركته أدقوا حمانية كتشو ذكر إلهي وبدل أدقوا ما لا يعني لغو كشيكين يتشوجي وبدل مركاد مع الأيام وإذا علم الله صدق نيتك أعانك على ذلك مركا مجاهد وباهنت وحلاك تدد عرفت شو عرفة وذلك غاركود ملايين وحوسوا بحيين كمالان دولار سوا بحيين سي أي مالينتا وكب اللاب ما يستال لبيا طوبان كالظهر ما يوحي كدن بيا الزوال كقراح المكا يزوشو إلا يقرحوا كدعيس والليح أما تضبط ساعات توقيتك مربسي لحظة ساعات بارك ساعات أنت يكون بعضتي قار تربع عيارية قار وريقالي سنة قار موبيل يتصوران يعني موبيل هاللاني عرفان تاجناي يستصنموا وقت كلام وعبد محروم حرم من الخير خير كيبا لو ديدي waayo markii uu joogay magaaladiisa Nairobi uu joogay ayaanu naftiisa khayrka ku tarbiyaday marka Carafa marka la joogo de waa ciid iyo ciid yani Carafa de waxay wax la dheer tahay waa li ajli taaca ilaahay baa ka daaca ka yeelay walaahada maalinta tobnaad istaaga ala wajhi cibaadada loo istaaga waa bidcaba maalintaas cibaadada ku eegta marka waxay miisa ku yeelatay وحوي وطاعة كتعلق ذي إلهي وكحري مركا هداد نيروبي مركا تشوكتي نفط هذا الطاعة كتربيدين ويدي عيد عرفين تسوق هذا الطاعة كبيسين مش أيوة على هذا بعض نقونيسا تسوحي مكان لم يتاي قفكم مركا ملكموت كسود دقو دوحي وحي قلبي وهل كان وجب وحي بسوب بودي آخر مركا ويبادنا وحول لسو شر تجيا لسو شر تجيا وحي وشقيستي هدو خير يهينا خير بالله كل مياه marka inta halka la joogo hada xubinta ayar inta leeg ee saa isaga dhaqdhaqaaqaysa hadaad ka adkaan weydo waxa aynu sheegayna mid baad noqonaysa labada qolo waxa kamida shay mubaaha marka laba u qaybsama
مباح قصد به الطاعة أو اقترن بالطاعة كاس وحوي مأجور وحوي قفك الضيف كهاي كو يمد إن هذا الشيء كيسو حاس كاجين هذا الشيء كيسو عيال كاجين هذا الشيء كيسو كلام مباحة هذه غرض كاجي وشدد هذا وياهي إن إلهي ودواته ودي الضيف كي وحلينا أمر إلا إكرامي إكرام كانوا وحكمي ده الله شيء كيو مرك هذا الكلام شيء كيس ذات ديس طاعة معها لكن وحي لا حريري هي النية دي أي طاعة وبدليسا والنية تجعل العادة طاعة مركي لو نية لو لا يمعدو نية مركي لو لا يمعدو مباحة وحكم ده نوع بس يسديسو أي كوجيسين يسو إن أتكي محرم كأكو دعو وهذا ما يعني قبض سطو إسك هذلك المان تقول إسك دوريا ما يسو ده هذا الكلام مباح إسك هذا ليس ذات ديسو ما هم محرم لكن واحد لو ده هي إلا حبين تيارات كان ويدا إسك هذا ليس إنه مركز دم كولا قشة سيره حارنتها وحكم إذا مركز يسوقنا مباح إسك عاديها أيها كم إذا مركز مدة قلب كانوا كيرا ديراني وإنسك دافينا وجودنا واحد تهاي حتى بلاقي هذا النبي صلى الله عليه وسلم محكوي أمسك عليك لسانك هذا أنا وحينمك كشيء ونزر يسير جدا أي كبرادج ولقى يوم محاضرة بدن كيدي بين نقاطين مركب حلينا وجبها هي وجددنا أيتهاي وإسبراروتشينه عرب كائن وكات كان وهدينا محي دون إنه بدبادنا ويمن نجاة بول عقبة رضي الله تعالى عنه نبي وحوش وابي أمسك عليك لسانك وقدبك يقولي مركب هدات بدبادة دون يسوع وأدرجك قبط آخرة ينا بدبادو كأتكو ممنوع أنا كإلالي لغوي أنا إسك إلالي أو يريسو واي قلبي مداخل بوليه مداخل دقاها عندها عرفك مركا مداخل شاس تأثير قوي بكل قلبك هذا عندي وحول بس كجايكتو ومحرمات كاد سكدا دعوته قلبك عجبت سهام يور ملد عيسى لكن اسمه وجد هلا يعمل له وكرد انتين هذا نوين هلا يعمل له نيو هبلو وناقصنا لكن وسكجت خير كي وناقي ما هبين كم يسوبودين وحوي ورما كهري ولد عي قلبي جيسا دقيق حمانتي ولا سكدا جيستو هسيه موسيقي قرنكي وحوي مداخل قلبي جيب ضاوع عيسى عرب واحد قال لي سانا تأثير مباشر بكل قلبك مركادو أما قلبك أوضنه أما ضاوع كتخلص حتى يموت والعياذ بالله وحكى النبي يقول عليه الصلاة والسلام وليسعك بيتك قريقا هكوكو في الله قريقا هكوكو في الله أهل العلم قال ما معنى كاتل معنى ومعناه متبادر كمشهور كان أورانا يحوي حديثك دليل هي عزلة كذا يا روضتك وهذا لا يكون إلا في أوقات الفتنة إن قفكوا كديرا ضدتك وأنتوا سكجا دحبحوا خلطة وده قريجيس أو لازمه وضدك سكجا دحبحوا معنى كان علماء قاركود ويتلمامينه قريجا وهكوجو في اللعضة يعني قريجا كأتكو أولاد هذا أبتك ضدك قريجا وناش وقريجا وهكوجو في اللعضة هكو دقيقة قريجا يقول لي مال كان وحكي سوق بنا يا هورن معناه هوري متبادر كا نصوص بدن باكو صارورتي والنبي عليه الصلاة والسلام حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند الحاكم وانا حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي يقول إذا رأيت عبد الله بن عمرو بن العاص النبي يقول الله يا هدي أدركت عبد الله بن عمرو بن العاص iyadoo dadka ballamahoodii ay noqotay qaar aan la oofinayn oo ballantina iska galay la oofin maayo ammaanadoodiina ay khafiifto
وعيد وحلو آمنة من الماء رجينا هلك فردية كيبا محمد نبي وجهه صلى الله عليه وسلم كدنا نبي السؤال ويدي فرائد دايو ويدي نبي عليه الصلاة والسلام وجهه وهكذا وأنا فربديهن سؤالها الصحابة والنبي ويديين صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن بحث لقى سمايانا ويستاهلا والله أروريو أسئلة الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم وحي وحوي سؤال نقول كريا كلام أنت أسوأ قال لك حديث كان يدور نعاوين إنه استلتا إنه وحي وقت إنه سامح إلهنا سبحانه وتعالى إنه إذمه وحديث أنت أدوين عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام صحابي ساورين يا حديث كنا وثابت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عقبة وحلاية هي قلت من نجاة يا رسول الله رسولك الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدبادة محيطها من نجاته بدبادة أنكو بدبادة يا آخرية أدون بأن بدبادة يا عذابك الله عقاب كيسا أنك بدبادة ومحي يعني محيطها وحيابها بدبادين وسؤال رنتيادي يا دوين وقفك آخرتي صوتنين رجينا لسانا رنتي وسؤال اكتساد يا دوين من نجاة يا رسول الله عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام صدح ويرود كلية أيوسو خلاصي بدبايض وحي تهي صدح ويرود بيوسو خلاصي وحكم إذا مركا والسؤال تأكدوا يسألون النبي ويدي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أخبرني يا رسول الله بعمل إذا عملته دخلت الجنة أو يدخلني الجنة ويباعدني عن النار عمل إيش رسولك يا الله أن شننا كوجل نارنا يقدر يرينا واسكو معنا يعني بدبادة وحيتهاي العقاب كي عذابك كبدبادة هدات كبدبادنا ما له دحي سامة شرته وحوي أهل الجنة دي النار لقى بدباديو شن آيات كشيء هذا بصدق هذا ويراد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشيء عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه أيين استلتاقينا محو النبي عليه الصلاة والسلام وحكول أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك وصدح جملة دود وحكول النبي عليه الصلاة والسلام أمسك عليك لسانك اسكقب عرب كاغا هداد بدبادة دون يسو عرب كاغا اسكقبو وليسعك بيتك قرقاغو لها كوكو في اللادو وابكي على خطيئتك قفف كاغا الذنوب تادنا كثيرا يوضو كؤوي وكان دامود وصدح كلمة دود ورتي أينو باهنا إن بدنا نسكوع العلينو قفكو إنو حفظيو وصدح كلمة دود هذا البدن ما لا يعني يبغى إنو حفظ سنة وأن قيمة بدن لهين مركز صدح ذا ويرود إن الحفظ ذو نرش هذا آخر هذا بوحبك على تريا تكون عمل فش طبعا مركز قدر بينه دول تاجدنا إن شاء الله تعالى وهذا كواد وحنا النبي يقول عليه الصلاة والسلام أمسك عليك لسانك عرب كاغس كقبو نصوص رمضان با النبي كصارته صلى الله عليه وعلى آله وسلم صحابتي سووا دردار ما إن عرب كودكات كذا نصوص طبعا حكم إذا حديث معاذ رضي الله تعالى عنه ده بعض أصحاب السنن حديث كانوا مرة ويد آخرني شطر أما قيبتي صهرة معاذ النبي يقول عليه الصلاة والسلام وحديث شيكتا شيء
naarna iga fogeynaya jannana i gelinaya nabigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam marka faraa'idii islaamka salaadii soomkii zakadii ayuu sheegay waxaanu ku tawjiihiyay waxa weeye awaamirtii sharciga ayaa nabigu sallallahu alayhi wa sallam ku sheegay markii inta uu sheegay baa nabigu ku yiri ala adulluk ala milaki dhalika kulli shayga aan ku soo sheegay sharaa'icda faraha badan mid hananayo wada qabsanaya ama koobaya ama ku wada ilaalinaya ma ku sheega mucaado qultu bala ya rasuul allah waxa nabigu ha rasuulki ilaahay waxa nabigu ku alayhi salatu wassalaam كف عنك هذا كف عليك هذا انت النبي وعربك إشاري أيو لك إسك قبو معاذ يا بي ووحي رسولك يا الله عليه الصلاة والسلام عربك وحانو كغا هدلينا ميانا لو قبانيا نبي وحي هدا ددك نارتا maxaa ku gura naarta waxa dadka ku gura waa carabadoodaasi waxay jareen marka nabigu wuxuu tilmaamay alayhi salaatu wassalaam in khayrka iyo salaada iyo soonka iyo zakada shayga wada hananaya ku ururinaya ku daboolaya inuu yahay carabkaas oo aad iska qabato wuxuu la mid yahay gabadhii loo sheegay nabiga sallallahu alayhi wasallam haweeneydii loo sheegay ilaa taqumu al-layl wa tasumu an-nahar lakinnaha tu'dhi jiranaha هبلايو هبين كيودا ويتكتا مالنتي ودنا ويصونتا لكن وحي دبتا جار كيدا وفي رواية بلسانها عرفة كل دبتا نبي عليه الصلاة والسلام هي في النار لا خير فيها وأهل النار وح خير لله إن مجد مركب وافق يا حديث كان ألا أدلك على ملاك ذلك كله marka waa wasiya min an-nabi alayhi salatu wassalaam li ummatihi uu dardaarmayo inay ka iska qabtaan xubintaaya waa akhtar shay ala al-insan xubintaaya waa xubinta ugu dhibka badan ee bilaadanka qabsta ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم وحكى صحيح حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وحديث الحسن إن النبي عليه الصلاة والسلام من صمت نجا من صمت نجا كامساو بدبادا كان مسنا مفهومكم حنا قنيا مفهوم كيسو ما بدبادا يو ومفهوم الشرط نوع كامل من أقوى المفاهيم أضعفها اللقب وهو من دونه نظم الكلام العربي أعلاه لا يرشد إلا العلماء ما لضعف أعلاه لا يرشده إلا العلماء ما لمنطوق بضعف انتمى فالشرط فالوصف الذي يناسبه مفهوم الشرط ومعتبر عند أهل الأصول وحان كمد يهي الدرجة الثانية من أقوى المفاهيم marka mafhuum shartigu muxuu noqonayaa qofkii aamusi waaya ma badbaadayo oo halaagsamaya طبعا فهو الغالب ويعرض wuxuu yahay iyo loo filaan buu wuxuu yahay haduu aamusi waayo oo wixii khayr ama wixii kale ka aamusi waayo wuxuu halis u yahay inuu taraaro قد قرر أهل العلم أنه لا غيبة في الكافر بل قال بعض أهل العلم لا غيبة في المبتدع marka waxa nabigu ku xadeeyay dhikruka akhaaka bima yakrah inaad ku sheegto walaalka ka sheegto wuxuu karaahiyeynayo nabiga wala weydii alayhi salatu wasalaam oo waxa lagu sheegay haduu kuba sugan yahay ka waran nabigu wuxuu alayhi salatu wasalaam haduu ku sugan yahay waa ghiib hadaanu ku sugnayna waa buhtaan ya been abu rash حنت مركا وكبائر الذنوب كمت وانا الشيء لم يسلم منه
إلا الخلص من عباد الله ومن أراد الله له خيرا ولا قسم مي وحلقة يا بقفك هدو يستفقدوا maalintii iyo habeenkii haddii isu fiirsado ama cajalad iska duubo waxa laga yaabaa saacad walba inuu cid xamalayay waxayna ka mid tahay waxyaabaha lagu mutaysto cadaab qabriga naartana waxyaabaha lagu galo haddaanu qofka toobad keenin ama ilaahay subxaanahu wa tacaala uu dambi dhaafin waxa ka sii daran غيبة نوعها إن دين لقديو بدك قاركود لبس عليهم إبليس ودولتنا أيضا مسلمين تاها أي عرب كود الله دحرعان واللسان كالسيف عربكم سيفت لمده بل هو أشد منه marka in tadayun laga dhigto oo libaas sharciya la huwiyo oo la yiraahdo hebel ka waran hebel waa sidaa iyo sidaa hebel ka waran waa nooca iyo nooca walilaasaf dad badiyaana ka dhigtay waxaana khilaafsan tahay dariiqadoodaasi dariiqadii salafkii ummadan oo in carabkooda ka adkaayeen oo iska ilaalin jireen inay waqiica ku sameeyaan ummadda umuman dadka saalixiinta ee wanaagsanna gaar ahaan inay iska ilaaliyaan al-imam al-bukhari rahimahullah waxa uu yiri maqtabtu ahadan mund an sami'tu anna allah azza wa jalla harrama al-ghiba markii laga bilaabo markii aan maqlay in ilaahay xarimay ghiibada ولقيت محمد الإمام عبد الرحمن ابن محمد الرازي ابن أبي حاتم صاحب كتاب الجرح والتعديل قصة هي لقى صورية نصالحين تكمل أو يمد سوى كتاب كسالفة كتاب كنا وكتاب الله وطلق عليه رواد أما النقلات صون نقل سي حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن حكم كوضا لو شيغو أو لك له فوق أو كان صالح وحين إنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم لو آمنه لا شيغو حكم كيسا كان لو آمن كان لا شيغو شيخ ساوي من وحول ما هذا الكتاب الذي بين يديك يا عبد الرحمن كتاب كوريا الله وامحي وحي كتاب صنفته في أحوال الرجال وكتابا كقري حالدها رجع صور حديث النبي صلى الله عليه وسلم أما تستحي يا عبد الرحمن بكور عبد الرحمن ماذا حشوني تتحدث وأنت في الأرض من أناس قد حطوا رحالهم في الجنة منذ 200 سنة وأنت تغتابهم في الأرض عبد الرحمن وماذا حشوني واحد حماق وحوي وحكشي جيسا dad 200 sanadood ka hor jannada gogashoodii dhigtay ayaa aduguna wax ka sheegaysa hada Abd Rahman wuxuu sheegaya waa mashruuc wattafaqa ahlul ilm ala mashruu'iyatihi oo in la kala saaro ruwaada dhafada ee aan saalix u ahayn xadiidka rasuulillaah sallallahu alayhi wasallam xambaaran iyo kuwa saalix waxay la saara waa diin wajawiz al-jarh li sawn al-millah كما قال السيوطي في ألفيته جرحك وحلو بني ملة إلا لغو إلالينيو شرعك لغو إلالينيو ومفسدتان بإسكوه ريمد قاعدون حيث وارتكب الأخف من ضرين وخيرا لدى استوى هذين هذه لما الشيء لبكود لما لبكوي مادان كود السهل بلا ارتكابيا شريعه waxaan kamid ahayn in wax lagu soo daro waxaan kamid ahayn oo xadiisan sugnay nabiga loo tiiriya waa mafsada qofkii muslimka ah ee sheekh ahana in wax laga sheego leeyahay waa dhaif ina waa mafsada wartakib al akhafa min dhurrayn wa khayran la dastiwa hadayn marka tiirayd baa lagu dhacaya waa la banaysanaya laakiin bi quyudiha wa bi dhawabitiha dhawabit iyo quyud
waxaan u baahantahay diyaana iyo alla ka baq sida waxa way dadka dhalinyarada intay maqaaxiya fadhiistaan hebel waa kida hebel waa mubtadic hebel waa xisb hebel waa kada ma la yacni inay shubaan hada laysa bidin hada laysa bidin walaysu aslan ahlan lidhalik اهل بوماها وهذا من ابتلاء الله عز وجل لعباده مركا قيمته waxay kamid tahay محرم اما تيدا بالتاويل هالنقطه اما تيدا بدون تاويل هالنقطه محرم الا ما استثني من ذلك وحكمت ان ماذا ينقل الاخبار وما ادراك أخبارت وشقدين خاصة هذين الصوماليين شقدين رقم واحد كاه ووركين لك على النقليو وسيدي دبا ولبا والله يا وادي هل كانت جوجتان ملا الدنيا إذا كوي ربضانو ولا فيدية ولا ياعي ولا شقيسانية لكن وضنكي أما الصومالية حداد إيكتو dadka dhalinyarada ama dhexdhexaadka ah boqolkiiba 70 maqaaxiyaha la fadhiya 8 subaxnimo la soo fadhiisanaya duhurka laga rawaxaya bacda casarka lagu soo noqonaya cishaha laga rawaxaya inta maxaa la hayaa waa naqlu al-akhbar waxa salayeen waxana leeyeen markaasay TV-yana u samaysteen Soomaalida TV-yada min awwalihi ila aakhirihi waxa laga hadlaya illa man rahima Allah ma doonayna naamimno sharkayna naamimno laakiin gaalibkaynu ka waramayna wa naql al-akhbar waliba ya layta tu'an laha naql khabar sidiisi loo naqliyay namimaduna waa naql al-akhbar ala wajhi al-ifsad al-ifsad looga jeedo yani naql akhbar mujarrad ma anta hebel baalka maray ma ha namima ونميمة وحوي ونقل الخبر على وجه الإفساد لو نقليه هذه أدبانه وبضنت وحكم إذا وحيابا الله يسقط دريو أما جروب بدأ أما وحيابا الله متك وسائل التواصل الاجتماعي ما السوشيال ميديا وحكم إذا بوابة أما الباب شرف ربضان أما ضوفري نفع فربضان وليه لكن إن بضانه كم إذا مجتمعوا وحوادك صداقين عحن أما بين بالسوق بيا أما ورا فاسد بالسوق بيا ورا شرين بالسوق بيا حكومة هذا اللي وقف كم بيا وهكذا مركن نقل الخبر كنا حكم دي هاي وتصال يعني وبدأ وحكستو شرع وحرمي وعرب كلا قولا ومحرم وحلم إذا مشروع فربدية طاعة كستا أو لسان كلا جودنا ومشروع أما واجب النقطة أما سنة النقطة إيمانكم هو قول وعمل قول وعمل عند أهل السنة والجماعة قاطبة الإيمان قول وعمل قولك وحكم إذا